Ma ogtahay in maayirkii ama duqii magaalada Muqdisho ugu horreeyay uu ahaa Romeo Cambani oo dhashay dalka Talyaaniga, waxaana xilkaas loo magacaabay 1 Diseembar 1936, waxaana uu hayay ilaa 15 Diseembar 1937, waxaana kasii dambeeyay ilaa 8 maayir oo Talyaani ah oo kii ugu dambeeyay la oran jiray Carlo Fego 1953 ilaa 1956 ayuuna xilkaas hayay. Ma ogtahay in Qaramada Midoobay la aasaasay 24 Oktoobar 1945, ujeedooyinka loo aasaasayna waxaa ka mid ahaa in la ilaaliyo nabadda adduunka oo dhan iyo in la horumariyo xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhexeeya ummadaha caalamka. Ma ogtahay in madaxweynihii ugu horreeyay ee Turkiga la oran jiray Mustafa Kemal Atatürk, wuxuuna xafiiska joogay 29 Oktoobar 1923 ilaa 10 Noofembar 1938. Ma ogtahay in waddanka Sweden uu yahay kan ugu jasiiradaha badan wadamada caalamka, waxaana uu leeyahay in ku dhow 270,000 oo jasiiradood.